بسم الله الرحمن الرحيم. مربتها الليبان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لوينو هويينو مربتان ليبان فرحت إيا رين مربتان دقنان إيا حسلوني مربتان لضنان إيا الليبان مكربتان خير أدونك إيا آخر ضبا مس أدونك أم بعد ربتان آخر ضن كملهدن فرحدو والله فرحضات فرحد دنيات أو كوبا أو قابا oo ku xiran cimriga adduunka ee yar. qofkii keligee doonaa oo xitaa helaa uu ku iloobi doona hal mar oo lagu tunbiyo naarta jahannama allaynu ka magan galnaye. farxad labaad waa taa aakhiro ee daa'inka ah aan marnaba go'i doonin weligeed, waana taas tan mudan in la doono oo loo dadaalo. xitaa haddii qofku qaybtiisa dunida ay noqoto dhib iyo rafaad, ha yeeshee uu alle ku xirnaado, u hoggaansanaado qowl iyo ficilba, ma shallaayi doono dib dambe weligii. waayo hal mar oo lagu timbiyo jannada baa hilmaan siin doonta wixii dhib iyo rafaad iyo murugo iyo ciil ee ku soo gaaray adduunkan. oo gacalayayaal, farxadda iyo khayrka adduunka oo lagu raaciyo aakhirada, taabaa ah farxadda dhan. farxadda iyo nolosha wanaagsan ee laga hela adduunkii aakhirada waxay u sugnaatay mu'miniinta iyo mu'minadaha, samayaasha iyo samooyinka, alla adeecayaalka iyo alla adeecooyinka, alla caabudayaasha iyo caabidooyinka, iyo saalixiinta iyo saalixooyinka. dhagaysa rabbiga wuxuu leeyahay: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كي كستا أردق مصوبنان لب أما ددق إساقو أما إيضو مؤمن دبه الرميسان توحيد كإسلامك xaqiiqdii waxaan ku siin doonaa nolol wanaagsan adduunkan oo ay u dheer tahay xurmo, qanaaco iyo risaq xalaal ah. waxaan hubaashi ku abaalmarin doonaa ajar u qalma wixii u wanaagsanaa ay fali jireen, waa jannada nolosha dambe ee aakhirada. haddaba farxadda iyo liibaanta kulligood waxay ku jiraan adeecidda alle, oo farxadda iyo liibaanta kulligood waxay ku jiraan qaadista jidka alle iyo sunnaha nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam. wuxuu yidhi alla weyne jalla wacalaa: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد
فقد فاز فوزا عظيما oo kii kastoo adeeca alle iyo rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam wuxuu xaqiiq gaaray liibaan macnaha waa waxa laga badbaadin doonaa naarta dabka aan dhamayn ah oo laga yeeli doonaa inuu galo jannada hoogiduna waxay kulligeed ku jirtaa ku caasinta alle habaar qabiduna waxay kulligeed ku jirtaa ku socoshada waxaan ahayn jidka alle iyo sunnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam Allah jalla wa ala wuxuu yiri ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اوكي كستو ku caasiya alle iyo rasuulkiisa wuxuu dhab ahaan dhumid cad ee walaalooyinka iyaga muslimadaha ahow ma rabtaan farxad iyo liibaan haddii aad rabtaan mana filayo inaydan rabine iga dhagaysta waanadan iyo canaantan idinka timid walaal daacad idin ah oo ajr alle ka dooni oo uga baqaya wajiyadan dabnaareed iyo cadaab walaalooyin ha caroonina xaqa mudan in la ajiiba walaashay muslimada ahay cod gacal idin diirnaxa iyo hadal sama ka taliya idin diga waxaan kuugu yeerayaa oo ugu yeeray qof kasta iyo naftayda ka cabsashada alla weyne kor ahaaye iyo inaan u horumarsano nafaha yaga camal wanaagsan oo suuban oo cadaysa ifisana wajiyadeena maalinta aan la kulana alle maalin aysan maal iyo ilmo wax tari doonin qof la yimaado ma ahay qalbi shirki kafiyo يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون maalinta barka ay wajiye qaar noqon doonaan cadaan wajiye qaarna noqon doonaan madow xagga kuwa ay wajiyadoodu noqon doonaan kuwa madow kuwa waxa lagu oran doonaa ma waxa diideen iimaanka kadib markii aad aqbasheen marka ku dhadhamiya cadaabta naarta dhexdeeda diidadiina iimaanka awgi xagga kuwa wajiyadoodu noqon doonaan cadaan waxay dhex ahaan doonaan naxariista alle jannada dhexdeeda bay deganaan doonaan weligood waa sidaase عديس وجيدنا ما لنت أن لكل من الله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله maalinta qof waliba loola hor imaan doono dhammaan wixii khayr ahaa uu falay iyo dhammaan wixii xumaan ahaa uu falay wuxuu jeclaan doonaa inay ahayd masaafo fog dhexdooda isaga iyo xumaantiisa war hooy ma doonaysaan badbaadadu waxay ku jirtaa taqwada alle jalla wa ala oo wax kale kuma jirto وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله wuxuu u badbaadin doonaa kuwa muttaqiinta ah suubanayaasha iyo saalixiinta rumeeya tawxiidka islaamka ee alle aad uga cabsada ka jooga dhammaan falalka xun iyo dambiyada uu alla reebay oo alle u jecel aad guta dhammaan falalka wanaagsan ee uu alle amray meelahooda liibaanta janno xumaan ma taaban doonto mana murugoon doonaan oo waxaan misna kugu yeerayaa ukhti muslima mid kale oo ah inaad mahadiso alla weyne jalla wa ala ee ku siiya nicmada islaamka iyo nicmada quraanka nicmada tawxiidka ee ku karaameeyay ku daahiriyay meeqaankaadana kor yeelidan haweenna marnaba meeqaankooda kor looma yeelin sida loogu yeelay raayada islaamka hoostiisa raayada laa ilaaha illa allah muhammadan rasuulullah halka ay dumarka islaamka ka hor ay ahaayeen badeecad rakhiis ah silcad jaban oo ceeb iyo fadeexad ku ah weligeed iyo bulshadeeda ee ku dhex nooshahay
sida awgeed baa waxaa loola dhaqmayay marmarka qaar sida cayaayinka bal waxaa laga saramarin jiray xoolaha kuma aadan helin cizada iyo sharaftaada waxaan ahayn diintan adoontii Allah ee qabso oo ku dhagayso qowlka alle isagoo ka waramaya xaalad hore islaamka ka horeeyay ay tahay inaad xusuusato deetana aad mahdiso alle awalka iyo aakhirkaba sir iyo saaqba nicmada uu kugu galladaystay awgeed wuxuu yiri alla weyne jalla wa ala wa idha bushira ahadun bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi التراب ألا ساء ما يحكمون oo markii khabarka dhalashada ilma dhadig ah loo keena midkood wajigiisa baa wuxuu noqdaa madow isagoo ka calool xun wuxuu ka qariyaa naftiisa dadka xumaanta waxa loogu soo wargeliya darteed madullinimo iyo sharaf dhac buu ku haystaa mise ku asrura yaani aasaacida xaqiiqdii waxaa shar iyo xumaan ah go'aankooda laa ilaaha ila allah waa nolol xabaalaya oo dilaya oo aasaya gabadhii iyadoo nool ee dhagaysa adoontii Allah waxaa la yiri saxaabi la yiraahdo Abdullah ibn Muqaffal radiyallahu anhu warḍah markii uu la fariistaba nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa ka muuqan jirtay wajigiisa murugo iyo tiiraanyo murugo weyn iyo tiiraanyo badan nabiga sallallahu alayhi wasallam baa weydiiyay sababta murugadiisa aan kala go'al ahayn wuxuu yiri rasuulkii Allah sallallahu alayhi wasallam waagi jaahiliyada islaamka ka hor waxaan ka tagay xaaskayga iyadoo xaamil ah oo waxaan u baxay safar dheer soo mana noqon sanado badan kadib ma aha waan soo laabtay mise waxay ii dhashay xaaskayga gabar aan arkay iyadoo la ciyaaraysa wiilal yar waxaa ka muuqatay quruxdan iyo baraa iyo wanaag waxay ahayd khayr qabta yar oo qaali ah qaaya badan oo qurux loo dhameeyay oo lagu indha qabowsado sawaan soo qaaday oo ku iri hooyadeed u qabay khayr qabtadan u qubee iyadoo inaan nolol xabaalayo oo dilayo markaasay hooyadeed u qubaysay oo tintii u tidaaday oo sii qurxisay iyadoo calool xun hammi iyo muruga saaran tahay intay dhistay gabadhii yareed bay waxay tiri ninoo hadayicin amaanada wuxuu yiri sawaan ka haystay gabadhii iyadoo calool xaaran faraxsan oo bilic iyo qurux la ifaysa oo aan la aaday waraq kamida waraqyada waxaana cabbaar ku dhex jiray waraqyada anigoo baadi goobahaya ceel aan halkaa ku ogaa saa waxaan ku imid ceel sal dheer oo oomana ah aan biyo lagu arag waxaan istaagay ceelka afkiisii anigoo fiirinaya gabintaas markaasuu qalbigaygu u nuglaa calool xaarnaanteeda iyo dambi la'aanteeda mise waxaan soo xasuustaa ceebta ay dumarka keenaan iyo fadeexada markaasaan ku qalbi adkaada labadaa laab u kacbaana ku jiray wuxuu yiri Abdullah ibn Muqaffal kadib waxaan iska raadiyay xoog oo intaan soo qaaday afgambi gabadhii ceelkii salkiisa ugu tuuray laa ilaaha illa allah markaasaan sugay anigoo hubsanaya inay dhimatay iyo in kale mise waxay leedahay aaba macaano dayacday amaanadii aaba macaano dayacday amaanadii aaba macaano dayacday amaanadii iyadoo ku celcelinaysa ilaa codkeedii go'ay wallahi rasuulkii Allah markiiba aan soo xasuusta dhacdadaas waxa ifuul hammi iyo murugo iyo hiiwaal oo aan jeclaada inaan ahaado mid dhinta oo aragiisa la waayo haddii uusan islaamku jirin wuxuu fiiriyay nabiga sallallahu alayhi wasallam Abdullah mise ilmaba ka qubanaysa oo garkiisii qoysay isagoo leh sida la yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri Abdullah yow wallahi haddii aan cid ku oogay xad dambi oo galay jaahiligi
يعني وحي إسلامك كهرية أوجي وانكوغ أوجي لها لكن سإسلام الدوحة لغو ضافا وحي هري قفتن بأوغد عي حالة دمرك أي بلشوينك كلا عربتك بحسنيدنا سيدا هنديدا شينها قريقة رومانكا ومتكسي أوروغية تيرانيا بدن وهدي لغاقا شاكيو aad dhafoorka qabsanaysid dhakafaar awgi iyo yaab iyo ama kaag iyo argagax u mahadnaq Allah wala shay islaamkooy u xamdinaq alle ee kugu hanuuniya diintan ee kugu sharfay diintan ee kugu karaameeya diintan oo qadarkaaga ku koryeelay diintan iyadoo ay lumeen xaqii ka beereen haweenkii kale ee adduunka ee qabsa xariga alle jalla wa ala ku dhag diinta alle azza wa jalla ساوى أجب كالله إركضه أجب يدك الأردن والوهم قوبيه أو كبد بادي نفت هذا النار كبد بادي نفت هذا النار أدونتي الله والله بعضا كفي عن فاطمة الزهراء كبدي رسولك صلى الله عليه وسلم وكير أبهد مال مالمها كمذا سيدا كتال صحيح مسلمك فاطمة بنت محمدي كبد بادي نفت هذا النار وحان كاغتري كرحق ألا مجرانه taasna waa ogeysiis kugu socota iyo degniin uu ku digay nabiga sallallahu alayhi wasallam markii loo bandhigay naarta oo arkay waxa gali doona inay u badan yihiin haweenka ee hooy ogow inaad u bandhigan tahay cadaabta alle hadii aadan u dhago nuglaan amarada alle hadii aadan adeecin Allah hadii aadan ku joogin amaradiisa iyo xuduudiisa oo aadan ka fogaan wixii uu ka reebay ee hooy ka badbaadi naftaada naar oo ku amal fal daacada alle oo isku dhowr ilaalada alle oo isaga ogow oo laba faqda aysan jirin oo saddex ku ahayn afarna ayan jirin oo shan ku ahayn shanna aysan jirin oo lix ku ahayn in yar iyo in ka badan aysan jirin oo cilmigiisa kula joogin meelay joogaanba والله بعضن حمل كرين أو أدل قادن كرين نار تالله بورها هدي لو سعودسين لها نار توا كمل من هاين كل النار تأوجد أي حاجة أديك كجوك تبرتير بورها دادير أي أبد وصهير أدون كان آخر ذان أسي وناكسن قفكي ألا أهو جانسن قول إيه فعل أو وحي أو تأهين meel la magan gala ma ay jiraan aan isaga ahayn kulligeen isagaynu u gadoomi doonaa xaqiisa kulli uu su'aali doonaa wixii ay faleen kulli waa la istaagi doonaa horti kulli waxa la weydiin doonaa wax yar iyo wax weyn wax saxar la eg iyo dhibac iyo xuub ka timirta فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وإغو ربك محمد صلى الله عليه وسلم وحان اغو ييري دونا هباشي دمان حسابتا دمان وحي اي فلجرين محي جوابتو نقون دونتا محي جوابتو نقون دونتا ولالك اسلام كو ولا شيء اسلام كو الديارية سؤاشا جواب أبي علي أدونتي الله وأبي رسولك محمد صلى الله عليه وسلم فلي أمر رضا علي انتي كران كاقاه أو كدير وحي الربي أو كجوك حدوديسا أو قبس الدين تألي أو هيسا حشوت كاقا حشوت كنا واقب كمذا إيمانك كلنا وانا لويدين دونا محي نقون دونتا جوابت وحاد مسؤول كتهي قرقاك أدونتي الله waxaad na tahay mas'uul hadii aad macallimad tahay waana lagu weydiin doonaa waxa lagu raaciyay wixii ay ahaadaanba adoontii allah ee ku noqoto saalo wanaagsan barbaarinta facan ee hooyno guda xilkaago waana lagu weydiin doonaa wixii lagu raaciyay sida aad ka yeeshay ma gudatay xilkoodii mise waa dayacday amaanadii si aad u heshay ajarkoodii wixii kugu raacay xaqa iyadoo aan ujuuradooda wax laga dhiman كدكتوناونا أو كدكتونو إنها تصالح النقطة مركزنا تماد مالنت قيامها أدقو حنبارسن دنبية دادي إيه دنبية دا عدي أظلمي سيئودا أو حما واحد قادي دون تمركا أو دنبية مواضا مقال قولك النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول ابن عمر الله كرر لنقضي وحجري النبي صلى الله عليه وسلم وحجري
qof walba waa mas'uul oo xil baa ka saaran waajibyada dushiisa ah waana ka mas'uul wixii ka dhaca cidda iyo waxyaabaha loo xil saaray ninka madaxda ah waa mas'uul waana la weydiinayaa sida uu xilka uga soo baxay la xiriira dadweynaha uu mas'uulka ka yahay ninku waa mas'uul iyo wakiil oo reerkiisu mas'uul ka yahay ninku waa mas'uul iyo wakiil oo reerkiisu mas'uul ka yahay naagtuna waa mas'uul oo guriga ninkeeda iyo ilmihiisa bay mas'uul ka tahay hadal iyo dubuubti qof walba waa mas'uul waana la weydiinayaa wixii ammaano ah oo gacantiisa ku jira iyo hawl iyo dadba xadiiska Bukhari iyo Muslim baa dhigay abeetana gooni baa lagu xusay wal mar'atu ra'iyatun ala bayti zawjiha wa waladihi naagtuna waa mas'uul oo guriga ninkeeda iyo ilmihiisa bay mas'uul ka tahay amin abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun lira'iyatihi illa harrama Allahu alayhi al-jannah muttafaqun alayhi أبو يعلى مع قلب يسار الله كرر لنقضي وحجري وحان مقلي النبي صلى الله عليه وسلم وله قفكي لو مقعاب حل أو مسؤول لو قد قدتك إساقون خيانا يا إسيدا كل انت لو ما أقلان دون أو واكحاران إنه قال جنة قيري دي ستبادد بخاري يا مسلم ورين كربا وحي لا بهي حدي أوسن كترين دتك هوستي سجوغ السمان تودا أو وشقين سيدا عدي يهفنان له مهل الدوان حتى عرفت جنة warinta muslim waxay leedahay hadii qof loo xil saar arrimaha muslimiinta ee uu ka dan la'aado inuu ugu shaqeeyo arrimahooda si hagar la'aana oo sanna ka tarin samaantooda lama gali doono jannada muslimiinta xadiiska muslim buu ku yaal adigu waxaad mas'uul ka tahay gurigaaga oo mas'uul ka tahay dugsigaaga iyo hawsha aad hayso ee iska ilaali inaad timaado maalinta qiyaamaha iyadoo mid walba oo ilmahaaga kamid ah dulmi aad u geysatay ku saaran tahay oo gabar kastoo gabdhahaada kamida ku ashtakayso iyagoo leh ma aadan nafarin khayr ma aadan naga reebin xumaan nagumana aadan barbaarin taqwa iyo suubanaan waa sidaas iska jir inaad timaado maalinta qiyaamaha iyadoo ardayad waliba ay ku haysato dambi inaadan ku barbaarin awgeed wuxuu yiri Allah iyo wuxuu yiri rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam markaas waxa lagu dhaqmi oo wax lagu kala qaadan waa amal la suuban ama amal la xun waxay ka qaadan xasanaadkaaga oo lagu saari dambiyadooda kadib waxa lagu tuuri naar Allah ka koriye cadaabta iyo carada Allah adiga iyo muslim iyo muslimad kasta dhageyso maalinta ay dadka istaagi doonaan banka qiyaamo maalinta uu alle oran doono sida soo aroortay waxaan ku dhaartay ciisadeyda iyo haybadeyda inaydan maanta halkaan ka tageen iyadoo qof ku leeyahay qofna xaq waxaan ku dhaartay ciisadeyda iyo haybadeyda ma dhaafi doono boondada naarta kormarta daalim oo naartay kaga hooban waxa la qaban gacanta adoonka alle iyo gacanta adoonta alle maalinta qiyaama sida uu yiri ibn mas'uud markaas baa oo manka dhexdood laga dhawaaqi kani waa hebel ama tani waa heblaayo qofkii xaq ku lahow xaqiisa u yimaado markaasay haweentu ku farxi doontaa inay xaq ku yeelato aabaheed iyo walaalkeed ama ninkeeda ama hooyadeed فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون مجري دون تقرابا نمو كدحيس ددك مالنتاس oo waxna isma weydiin doonaan midkoodba kan kale yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi maalintaabuu qofku wuxuu ka carari doonaa walaalkii iyo hooyadii iyo aabihii iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa qof walba maalintaas wuxuu yeelan doonaa arrin ku filan ee ka yeesha inuu ka dan la'aado dadka kale ee isjiray yaysan noqon wiilashaadii iyo gabdhahaagu kuwa kugu muddaca alla agti ood markaas hoogto Allah naga koriye hooga adoontii Allah walaashay muslimadda ahay ma rabtaa liibaan farxad reen barwaaqo baraare ma rabtaa khayr
كدي سوبنوينكي سياد اللي بانتو الدنيا آخرة أو فلا عمل صوبا أو داعد هو الله أو ويرتك الدين تألا يصوبنا أنت أدونتي الله ووحل جمر جوده إلا مقله يوين أن حتى فاتحة آخر أقول إن يقوليها الجوجان أو أين هلين هوين وحبرة هوين أن جرنا حتى سيدلوت كده بل أن جرنا أحكام لحرير هوينك نبى مر أنت الله فريسترير كي صعدا إسقوا إيجا هي هير كودا أقانت دينتا كوجر هو يدي هويو آخر فاتحة إسقوا رب إنه أوجادا إن يتقاني إنكلا وحيتري ما فاتحة اللي هذا ماندو وحجري مركي آت الله أكبر تراده ما حد كل هذا الصلاة هذا هويي وحيتري وحان إرهده ما آخرين كتاب أو ما ديجان حساب إيجو كري عذاب دعدي دوات ضبعت صنو وحان الله يهي واحد دعي كرتيني قوري إذا جوغان دمر أقول له أو قرآنك إن بدن كحفتسا فهنسن تلاوية تفسير با لكن سوحان أبرنا علمك معها إنان كو عمل فلنا إوا إنان شهادة كو قادنا أديك إسكالوينو ولا شيء مسلمة داهي إني سيدا نقطة دانتا آد كلا ذهي علمي برشدا ولغوي دين دونا وحي آد برات سيدا آد كيشي وحوير الرسول كي الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح نبي صلى الله عليه وسلم وحوير الدونكو وتاجنان هيا ودينعنا أدقاق ما يمالنت قيامها إلى السؤال دادسي سيدا كل ميي إيا أقونتسي إيا سيدا استعمالي إيا مالكيسي ماشا كتبعي إيا وحا كبحيي إيا حوقيسي إيا هالكو كل ميي ترمذي وحوني يروى حديث حسن صحيحة maxay jawaabtu noqon doontaa khayr qabooyin ku dayaso banooyinka sidii aan iri oo isku ekeysii oo ku amal fal wixii ay ku amal faleen oo qaadaraadkoodii bal inuu alle kula meelkeeyo wa tansara afadi al-khalil ibrahim alayhi salam waxay cuskatay allah azza wa jalla oo magan gashay waxayna ogaatay allah kolkii barwaaqada iyo baraaraha markaasuu isna ogaaday waqtigii dhibaatada iyo lurka waxaa looga kaxeeyay gurigeedii xoog oo waxaa loo qaaday qooqaagii masar ee waagaas wuuna u soo istaagay isagoo doonaya inuu ku fala faaxisha wax xille وهويني ضعيفة لكن سعزيزة حوق لأه مركي قبسة حرق ربي أعرق سبحانه وبحمده واستاكتي أو ويساستي أو أكعب إني تكته أو لحررت ربي سبحانه وتعالى توس لحظة عندنا مصميسان يدي ربي وما يران أدون ماذا الله كمده ما أران عبد القادر جيلاني جو أو ويسو ولا أو عثمانو وما يران النبي ولا ملك waayo waxay ogeed alle oo cid kale loo yeertaa inay tahay shirki iyo gaalnimo ma uska nabi malag wali sheekh duq hore awoo hore iyo wax la mid ah waxay uskatay allah kaliya waxay bariday allah kaliya waxay u yeeratay allah kaliya waxay la xiriirtay allah kaliya waxay magan galyo weydiisatay allah kaliya waxay talabtay magan alle mana raacin magan rasuul waayo waxay ogeed in raacinta magan rasuul ay shirki iyo gaalnimo tahay taasina lagu lama yaabayo waayo waa afadi xaaski madaxii muwaxidiin ta'allamidaya ibraahim alayhi salaam oo cibaadada sida baryada wax codsiga gargaarsiga magan dalabka wacalaalka cuskashada tala saarashada isku haleenta iyo wax la mid u gooni yeela allah muslim wahida waa kii barya alle oo kaliya gargaarsada magan gala u calaacala tala saarta isku haleeya cuskada allah kaliya waxay la xiriirtay allah kaliya oo tiri allah maadaama aad ogtahay inaan ku rumaysanahay adiga iyo rasuulkaaga iyo inaan ka xafiday jirkeyga iyo farjigeyga waxaan ahay ninkeyga allah ha igu salladin gaalkan allah ha igu salladin qooqaagan allah iga filno oo igu difaac wixii aad doonto markaasuu gaalkii meeshiisii ku qalalay oo ka dhaqaaqi waayey alla bay dhowrtay waqtigii barwaaqada markii ay magan gashayna allah waa uu dhowray saa waxay dhowrtay waqtigii dhibaatada meeshiisii buu ku qalalay qooqaagii oo kama dhaqaaqin markaas haddana la sii daayay
markaasuu misna u taagay mar kale gacantiisii oo haddana xubnihiisii qalaleen oo sidii hore oo kale noqdeen haddana wuxuu ku soo fidiyey mar saddexaad iyo afraad ugu dambayntiina wuxuu ku yidhi askartiisii imaydaan keenin waxaan ahayn shaydaan u celiyey ibraahim oo adeegta uga dhiga haajar ma aysan noqon oo keliya iyadoo la xafiday oo xafidan bal waxay soo laabatay iyadoo wada tajaariyad loo hibeeyey waa haajar allaha ka raali noqde waxay u soo noqotay ibraahim calayhi salaam iyadoo dhowristii alla ku dhowrsan waayo alla weyne caza wajalla wuxuu yidhi فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه kii kastoo ka cabsada allah oo baari u ahaada wuxuu u yeeli doonaa jid uu kaga baxo dhibaato kasta oo wuxuu ka irsaaqi doonaa xagga ilo uusan marnaba malayn kareen oo kii kastoo isku hadlaya oo ku kalsoonaada oo tala saarta allah haddaba alle waa kaafin doonaa wuxuuna yidhi rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam ixfad illaha yaxfadk ixfad illaha yaxfadk dhowr oo ogow alle ha ku ogaadee oo ha ku dhowre haddaba cizada iyo sharafta waxay ku jirtaa gacanta alle qofkii addoomaha caabudaana alla waa dulleeyah miyaydun haddaba ku dayaneen walaalooyin miyaydan isu dhiibeen allah oo ka tegeen wixii idinka fogeen alle maad ku soo jeedaan barashada kitaabka alle sallallahu calayhi wasallam iyo baradiisa iyo gaarsiintiisa iyo ku camalfalkiisaba ood ka mid noqotaan kuwii uu ka yiri nabigu sallallahu calayhi wasallam khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu waxa idinku khayr badan qofkii quraanka barta fahma ku camal fala oo dadka kalena sii bara oo ugu yeera intaasoo kaliya ma aha ee ma ka dhigatay tusaale Faaduma bint Rasuul ee ku barbaartay guriga nabinimada ee dhadhamisay wixii uu dhadhamiyay beedka oo rafaad iyo sila ah alla dartii azza wa jal waxay arkaysay aabaheed sallallahu calayhi wasallam isagoo diinta fidinayay inuu taagnaa saf kaliya aadanaha intiisa kalena ay taagnaayeen midkii saf ah oo ka soo horjeedaan waxay arkaysay isagoo salaad ku jira midkoodna xaqdiidadii uu leeyahay kiineebaa sugi midkan istustuska ah ilaa uu ka sujuudo oo dabeeto dusha ka saare mandheerta geela reer hebel soo tuuraan waxay aragtay taa iyadoo ilmi yara oo ku barbaaraysa laa ilaaha ila allah muxammadan rasuulullah intuu sujuuday aabaheed oo mandheertii lagu tuuray dhabarkiisa saamu uusan helin hiliye alla ka suko waxaan ahayn gabadhiisa Faaduma iyadoo gashaanti yara oo markaas ku soo oraday oo ka qaaday iyadoo habaaraysa kuwii sidaas yeelay caynaysa waxay soo joogtay heerarkii dacwada nabiga markii uu Maka joogay iyo markii uu ka soo haajiray iyo markii uu ku nagaaba bal fiiri sida ay ugu dhaganeed diinteeda oo ugu dhaganeed dhowrsanideeda iyo xishoodkeeda iyo sabarkeeda weyn haweenaydaas uu guursaday Ali bin Abi Talib Allah ka raali noqde dahab iyo qalin midna ma qaadan oo ma gelin daar villa ah ee waxay gashay cariish dhooba ah alaabtii loo dhigay waxay ahayd barkin lagu cufeeyay caleemaha geetimireedka iyo aashuun iyo laba dhari iyo shiida ay ku shiida soorta Allah ka raali noqde iyo hal dirin iyadoo ah marwada koowaad ee haweenka ahli jannada xaaladeeda ma saameen qadarkeediina wuxuma dhiman bal u fiirsada markii uu ka sheekeynayay ninkeeda aakhirkii noloshiisa waxaa ka waramaya Ali radiyallahu anhu wuxuu yiri waxay ahayd gabadhii rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyaduna ugu jeclaa ehelkiisii waxay soorta ku shiidada bay gacmaheedii saameeyeen ceel soo jiidkiisna la caatooday dhageyso waxa ay tiri maalin kamida maalmaha
waxa u khayr badan haweenka inayan arag rag ajnabi ka araguna arag iyada waa hilibka soo gay nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay ka qaadatay cilmigiisa iyo xikmadiisa iyo fiqigiisa sallallahu alayhi wasallam eeg marka ay shiidayso soorta oo biyo soo dhaaminayso oo ceelka soo jiidaysa oo dabka horinaysa iyadoo saabirada aan ka xumeyn aan sheeganayn aan ka hor imaanin qadaha alle iyo qadarkiisa intaas waxaa dheer iyadoo ku tarbiyeynaysa wiilasheeda tarbiyad iyo barbaarin weyn wax ku barbaarinaysa kitaabka alle iyo sunnada rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam iyo inay alla wax walba ku ogaadaan yay soo saartay marka xasan iyo xuseen amiirada shabaabka jannada iyadu waa gabadhii kuma waa hooyadii kuwama waa aafadii kaah yaa kula siman sareen umanka aabaheed waa maxamed sallallahu alayhi wasallam uu jibriil tawxiidka ku barbaariyay calina la ismu weydiinayo waa seef arrinka alla galka looga saaray waxay ka dalabtay rasuulkii alla sallallahu alayhi wasallam mar inuu u keeno cid u adeegtaa shaqaale ahaan muxuu ugu jawaabay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri may wallahi inta uu jiro nin asxaabu sufa ah oo sabool ah u baahan luqmad ama jab muufa ah ama waa sidii uu yiri sallallahu alayhi wasallam markaasay gurigeedii aaday iyadoo ku noogtay howlihii guriga waxa uu yimid deeto nabiga sallallahu alayhi wasallam oo idan saday soo galida guriga oo u soo galay iyada iyo cali oo hal dirin ku wada jiifa markaasuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam ma idan tusaa waxa idin ka khayr badan shaqaale yaa yiri sida waa midaan ku hadlin hawadiisa waxyi loo waxyooday ma aha wuxuu yiri marka aad u hooyataan gubashiina alle hufa yani dhahaya subhanallah 33 jeer oo u xamdanaqa alle waa dhahaya alhamdulillah 33 jeer oo takbiir la imaada waa dhahaya allahu akbar 33 jeer sidaas baa qaadin iyo shaqaale idinka fiican ma falnay sidaas oo kale gacaliyayaal balse ma barnay haweenka yaga inay la yimaadaan wardiga oo kale jiifka ka hor waa u kaalmay iyo maciin weyn guriga wardiyada nooca oo kale ah cali radiyallahu anhu wuxuu yiri wallahi marnaba kama tigin wardiga sidaas baan ku sugnaan jeer aan kala kulmo alle waxay yiraahdeen ma xitaa habeenkii safiin wuxuu yiri xitaa habeenkii safiin isagoo dagaal qaraar ku jira xitaa muusan ilaabin inuu la yimaado wardiga waxaan idinku leeyahay walaalooyin qabsada wardiga isagaa idinka fiican shaqaalo idin shaqeeya ah fiiri faadima walaashay muslimadda ahay kadibna fiiri dhaqanka haweenka nin kasta iskala istaaga nin kasta iskala qosla rag kasta iska dhexgala ragga gaya aan ka indhalaaban iyo siday isugu ekeysiyeen naagaha gaalada xagga labiska socodka iyo wax lamid ah weenka iska safra muxrim la'aanta iyo wax lamid ah ilaahay baan kugu dhaashay walaashay muslimadda ahay adigu waxa tahay tusaraysa oo waxa tahay sharaftii oo waxa tahay dhowrsanadii waxaad ku saramartay oo ku sharaftoontay iimaankaaga ku dhowrsanaatay ku dhigidaada diintan ee sideebay gobtu ugu dayan mid gunah oo tii koreysay ugu dayan tii hooseysay sideebuuna qof daahir ugu dayan najis iyo fadaro qofku wuxuu khayr ku jiraa inta uu xishoonayo wallahi baynana noloshu khayr lahayn iyo dunida marba haddii la beela xishoodka waxaan ku xusuusinayaa mar iyo laba iyo saddex iyo ka badanba mu'minada daahirka ah ay ka sheekeeyaan ragga taariikhda qora in lagu dilay wiil ay dhashay mid kamida duulaamadii nabiga sallallahu alayhi wasallam markaasay dhex martay meydkii iyadoo raadinaysa wiilkeedii iyadoo xijaaban tin iyo cirib wajiguna u daboolan yahay oo aad u xijaaban markaasaa lagu yiri sidee baad ku helaysaa adigoo waji dabool ku saaran yahay waa intaasoo aad garan weydo waxay ku jawaabtay jawaabta mu'minada dhabta ah jawaabta tu adeecday allah waxay tiri inaan wiilkayga waayo baa iiga roon inaan beela xishoodkayga iyo diinteeda allah wuxuu yiri yaa ayuhan nabiyyu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina yudniina 'alayhinna min jalaabibihin ذلك
وكان الله غفورا رحيما nebiyow u sheeg afooyinkaaga iyo gabdhahaaga iyo haweenka mu'miniinta inay ku sii daayaan jilbaabyadooda xijaabyo ama shukooyin korkooda oo dhan yacni inay qariyaan oo daboolaan jirarkooda oo idil indhaha ma ahee ama il keliya oo ay jidka ku arkaan wallahi baan ka qeyr badnayn bay tiri hooyooyinka mu'miniinta iyo haweenka mu'miniinta iyo xitaa gabdhihiisa sala allahu calayhi wasalam laakiinse halhayskaygu waa ku dayda haddii aydan gaareen saa ku dayashada gobta waa liibaane waana kan rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam uu diray nin si uu ugu doono gabar ka mida gabdhaha ansaarta markaasuu ninkii intuu reerkii gabadha dhalay u yimid buu wuxuu ku yidhi rasuulkii alleh wuxuu ii doonayaa gabadhiinna wuxuuna ahaa ninkaas nin foolxun oo sabool ah saa ninkii gabadha dhalay baa laba laabeeyey oo hooyadeedna sidoo kale laba laabaysay saa gabadhii la soo doontay ee ku barbaartay iimaanka iyo kitaabka iyo sunnada baa inta soo baxday tiri ma waxaad celinaysaan amarka rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalam xaggee ka gelaysaan qowlka alleh وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا uma habboona qof muumin ah lab ama dhadig markii ay alle iyo rasuulkiisa arrin gooyaan inay iyagu yeeshaan akhyaar taladooda ah ii guuriya bay tiri alle ima dayici doonee ma aragteen walaalooyin ajiibadda alleh markii uu arrin gooyo isaga ama rasuulkiisa sala allahu calayh wasalam ee ka dhigta tusaale suubanooyinka sumaya waxay qaadatay islaamka saa waa la soo xiray oo la garaacay oo la dhibay iyagoo doonaya inay ka saaraan diinteeda wax kalena kuma ayan gelin inay rumaysay ma ahee alla weyne jalla wacala saa waa diiday inay ka noqoto diinta waayo waxay ogeed inay xaq ku taagan tahay deeta maxaa ku dhacay waxaa ku soo orday isagoo aan meelna uga waaban habaar qabihii abujahal isagoo eeba gacanta ku sita oo uga dhuftay farjiga ibta laga dhalo sumiya iyadoo xaalkeedu leeyahay wacajiltu ilayka rabbi litardaa waxaana kuu soo degdegay adiga rabbiyow si aad raalli u noqoto saa waxay ahayd shahiidad tii u horraysay haweenka ee islaamka loo dila biidni illaah kuwaas ka hor haweenaydii fircoon aasiya ee ku rumaysay tawxiidka beed uu joogay mid leh ana rabbukum alaclaa waa aniga rabbigiin korah kama reebin dibindaabyada qooqaagii inay xaqa qaadato kama baqin xooggiisa oo kama baqin xadgudubkiisa markii ay u caddaatay islaamideedii wuxuu ka dalbay inay ka noqoto diinteeda saa waa diiday sidee bayna ku suurowdaa muslim diinta fahmay inuu ka ridoobo oo dib cirbihiisa ugu laabto muxuu ku falay fircoon dabadeeto wuxuu ku kala xiray labadeeda gacmood iyo labadeeda lugood 4 tiir kadib buu intuu xirxiray ku tuuray ciridda oo u diiday cunto iyo cabid oo garaacay garaac weyn oo jeedalay oo xil saaray kuwa jeedala saa waxay tiri maxay tiri oo yey magan gashay waxay magan gashay askumaha cirarkii dhulka kaliya allah waxay tiri وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين waxay tiri rabbigaygiyow iga dhis guri la jirka jannada gudaheeda oo iga samata bixi fircoon iyo amalkiisa oo iga samata bixi qoonka ah dhaalimiinta mushrikiinta iyo xumaan falayaasha iyo gaalada ku gaalowda allah waxaana la yiri markii ay sidaa tiri daahiyada jannada baa la qaaday ilaa ay aragtay gurigeeda jannada oo luul cad oo gudo weyn ah saway muusootay oo dhool birtay iyadoo la cadaabayo ilaa ay yiraahdeen tani waa waalantahay waa la cadaabaya haddana waa qoslaysaa wuxuu yiri abdaxaak saa wuxuu amray fircoon intaa kadib
in dhagax weyn lagu kala baraajiyo madaxeeda laakiinse allah baa qaaday ruuxdeedii intuusan dhagaxii soo gaarin wuxuuna uga dhigay tusaale mu'miniinta ma aragteen gacaliyayaal iyo walaalooyin sida ay mu'minadu ugu xirnaato allana u dhowro subxaanahu wa tacaala intaa keliyana ma aha waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan kuwaasi waxay ahaayeen waa hore oo tegey marka waxaan idin sheegi doonaa tusaale casrigan ah waa islaan markii ay aragtay haweenka badi sida ay yihiin iyaduna ka baqda alla weyne caza wajalla waxayna ogaatay in carabkan yar uu hoojiyey qalbi badan oonu ku riday god ka mida godadka naarta oo ka yeelay inay meel kaga dhacaan sharafta muslimiinta meel kaga dhacana sharafta muslimiinta waa ku aroorid naar saa markii ay haweeneydaasi wax faa'iido ah ka weyday kulanadii haweenka bay gurigeedii ku ekaatay markii ay aragtay in hadalkooda u badan yahay heblaayo uur bay qaaday heblaayo waa la soo furay heblaayo ninkeeda iyadu waa istirarsan yihiin oo ay aragtay dumar habaaraya carruurtooda oo ay aragtay haween intaas waxamanaya oo isku dir iyo wax la mida ka shaqaynaya markaas bay gurigeedii ku ekaatay oo ka fogaatay iyagii oo dhan iyadoo xusaysa allah habeen iyo maalin sir iyo saaqba oo akhrinaysa qur-aanka way ka fogaatay haweenkii fadhiyadooda oo golahoodiina ka dheeraatay waxayna lahayd wiil baari ah saa habeen ka mida habeenada iyadoo u kici jirtay habeen ka mida habeenada iyadoo u kici jirtay habeenada salaatuleyl iyadoo sidaa yeeli jirtay habeen kasta halka habeenada guryaha badankood lagu soo jeeda aflaan iyo heeso iyo xan iyo qurun kale marka islaantaas waxay ku soo jeedi jirtay habeenkii salaatuleyl saa habeenada ka mida bay u yeertay wiilkeedii habeenkii oo wax yar ka dhiman waxay tiri wiilkaygiiow waa ikan anigoo sujuudsan aan xubinna dhaqaajin waayey saa wuxuu ula cararay isbitaal baari buu u ahaa wuxuu doonayaa inay caafimaado saa waa nuur guriga efiye ah xusta alla habeen iyo maalin sir iyo saaq wuxuu ula tegay dhaqaatiir wax kastay isku dayeen laakiin goormuu aadana wax ka qaban karay qadar alle ama baajin karay waxay ku weydiisatay magaca alle inuu celiyo guriga saa wuu qaaday oo guriga la aaday oo u weyseeyey oo tiri igu celi sidii aan ahaa musallahaygii xaaladii sujuudda wuu ku celiyey saa xoogaa kadib bay u yeertay oo tiri ammaana allah wiilkaygiyow alla baan kugu ammaanaystay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah oo dhimatay waxay la kulantay alle iyadoo sujuudsan oo dhaqeen iyadoo sujuudsan oo waxay kafneen iyadoo sujuudsan waxaana lagu tukaday iyadoo sujuudsan waxaa loo qaaday qabriga iyadoo sujuudsan oo la geliyay qabriga iyadoo sujuudsan qofkuna sidii markii uu dhimanayay ahaabaa lagu soo bixin doonaa qiyaamaha waxaa la soo bixin doonaa inshaa allah iyadoo sujuudsan gacaliyayaal rag iyo haweenba haweeney baa intaasoo dhan u kacaysay salaatuleyl qaar ka yagana uma kaca salaatuleyl xitaa saacad ama barkeed ama daqiiqado ama xitaa 2 ragcadood wuu ku rajaynayaa naxariista alle waxaan leeyahay ku dayda islaantaas allana wuxuu idin siiyey wuxuusan siino quwad iyo caafimaad ah kanina waa abulqudaama ashaami inta mar uu u khudbeeyey dadkii oo xusay fadliga jihaadka alla dartii iyo ahmiyadiisa saa markii uu ka soo baxay masjidka oo la bilaabay in loo diyaar garoobo jihaadka abuqudaama isagoo meel maraya mise islaam baa u yeerayso oo leh abuqudaamow salaamu calaykum salaanta kamuusan qaadin waayo wuxuu ka baqay inay fidmayso oo waayo nebigu wuxuu yidhi fattaquu dunya wattaquu nisaa iska jira adduunka oo iska jira haweenka oo kama qaadin tii koowaad iyo tii labaad tii saddexaad bay waxay islaantii tiri assalaamu calayka abuqudaamow sidaas ma yeelaan dadka wanaagsani saan waan istaagay buu yidhi oo haweentii ugu soo socotay waxay tiri waxaan ku dhagaystay adigoo jihaadka dar alle dadka ku boorinaya saa waxbaan iska baarbaaray mana helin wax ka qaalisan labadan xirmo oo tintayda ah qaado oo afxir uga dhig faraskaaga dar alle waa intaasoo layga mid yeelaa kuwa u jihaada arrinka alle laa ilaaha ila allah waxay u jaraysaa tinteeda si loogu xiro fardaha alle iyo ciidanka tu kalena waxay u jaraysaa timaheeda si ay ugu ekaato naagaha xun maxay kala fog yihiin bari iyo bugo maxay kala duwan yihiin labadaa kooxood gacaliyayaal qofkii qolo isu ekeysiiyey iyagu ka mid yahay bal ka warrama haweentan maalintii xigtay
wuxuu yidhi abu qudaama waxaan u baxay jihaadka dar alle mise wiil yaroo koray ah baa naga daba yimid isagoo leh abu qudaama wejiga alle baan kugu weydiistay inaad ii ogolaato inaan ka qayb galo jihaadka dar alle wuxuu ku yidhi waxaa kugu tuman fardaha wuxuu yidhi ilaahay magaciisan kugu weydiistay inaad ii ogolaato saa wuxuu yidhi abu qudaama haddaba haddii lagugu dilo waa inaad iiga shafeecda alle taasaa shardi ah wuxuu yidhi wiilkii waa tahay saa wuxuu ku qaatay faraskiisii oo la tegay ilaa ay iska hor yimaadeen ciidankii ruum markii ay sahleen ciidankii ruum buu wuxuu yidhi wiilkii yaraa alla wejigiisa iigu dhiib 3 fallaarood markaasuu yidhi abu qudaama waad dayacaysaa wuxuu wiilkii yidhi alla wejigiisa iigu dhiib 3 fallaarood saa wuu u dhiibay markaasuu 1 fallaar inta qaaday yidhi salaamu calayka abu qudaamow bismi illaah oo gamay saa 1 gaal buu ku dilay saa tu labaad buu gamay oo gaal labaad ku dilay oo tii saddexaad gamay oo gaal kale ku dilay saa fallaar baa ku timid oo kelida kaga dhacday oo faraskii ka tuurtay isagoo leh nabadgelya abu qudaamow salaan sagootis oo abu qudaama intuu ka degay faraskii ka daba tegay oo yidhi ha ilaawin dardaarankii saa wiilkii wuxuu yidhi kanina waxaad u geysaa hooyaday wuxuu yidhi abu qudaama waa tee hooyada wuxuu yidhi hooyaday waa islaantii ku siisay 2 tuduceetinta shalayto bal ka warrama guryaha muslimiinta sida dhabta ah loogu tarbiyay laa ilaaha ila allah muhammadan rasuulullah ma aragteen guryaha muslimka marka lagu barbaariyo laa ilaaha ila allah muhammadan rasuulullah waa sidaas hooyadii wanaagsani ubadka waa hanuunisa wataa safiyana binti cabdulmutalib nabiga eedadii sallallahu alayhi wasallam haweeneydaas howlkarka ahayd ee u soo saartay ummadda haliyey seef u qaata arrinka alle uu ka dhintay ninkeeda wuxuuna kaga tegay Zubayr isagoo ilmo ah waxay ku barbaarisay adeeg iyo xoog iyo fardafuul kuma barbaarin jiljilaac iyo raaxo jacayl iyo jabin heer maanta wiilasha iyo ragguba noqdeen raglamood aan rag ahayn waxay ciyaartiisa ka dhigtay shiis barasho iyo nashaaftan oo kama dhigin ciyaartiisa kubad iyo bushkuleeti hadba gees ula gooshid waxay u hormarinaysay wax waliba cabsi leh waxay ku tuuraysay qatar kasta waxay rabtaa inuu ka noqdo xubin waxtar leh mujtamaca muslimka haddii uu ka gaabiyana way garaacaysaa oo xanuujinaysay heer oo mid ka mid ah adeeradiis maalin ka mid ah maalmaha ku yiri wiilka waxaad u garaacaysaa si naceeb iyo naxariis la'aan ah ee ma aha waxaad u garaacid hooyo saa waxay tiri qofkii yiraahdo sida been buu sheegay waxaan u garaacayaa inuu ku barbaaro adeeg oo xoogsado oo uu jabiyo ciidanka cadowga oo soo taxaabto waxay u haajirtay almadiina iyadoo markaas 60 ku dhow waxay ka soo tagtay Makka iyadoo ula cararaysa diinteeda Madiina maalintii Uhudna markii ay aragtay wixii ku dhacay muslimiinta iyadoo ka waraabinaysa biyo waxay u soo kacday sida aar oo waran ka qaadatay mid kamid ah kuwii la soo jabiyay oo dhex martay ciidankii iyadoo cartamaysa oo leh hoogiina ma waxaad kaga tagaysaan goobta rasuulkii Allah sallallahu alayhi wasallam markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam Zubayr wiilkeedii ku yiri ka gaar hooyada oo soo celi oo Zubayr yiri hooyoy soo laabo markaasay tiri iga leexo hooyada waaye wuxuu Zubayr yiri hooyo rasuulkii Allah wuxuu ku amrayaa inaad soo laabato waxay tiri amrid waxaale Allah iyo rasuulkiisa oo istaagtay oo dabeeta tiri wallahi waxa isoo gaaray in la sarwajiyo walaalkii Hamza waa sabri ilaahi dartii saamarkii uu dagaalkii Uhud dhamaaday bay waxay soo kor istaagtay walaalkeed oo calooshiisii dabada la soo dhigay oo beerkiisii la baxay oo dhagaha iyo sanka la jarjaray oo la sarwajiyay markaasay alla dambi dhaaf u bariday iyadoo leh alla dartii bay ku soo gaareen aniguna waan ku raali ahay qadarta alle ma barooran ma garaacin dhabanada ma jeexjeexin dharkeedii saasna lagama dhowray oo wata maalintii dagaalkii godkana dagaalkii ahzaabta markii uu nabigu galiyay qalcad adag haweenkii muuminiinta kagamana uusan tegin wax rag ah saaciidankii wuxuu aaday godka saa waxay aragtay Safiya yahuudi u soo dhuumanaya qalcadda isagoo doonaya inuu eego inay qalcadda joogaan rag iyo in kale si ay yahuuda u galaan qalcadda oo u soo taxaabtaan haweenka iyo caruurta qafaalahan markii ay aragtay Safiya waxay soo qaadatay tiir qalcadda kamida oo ku weerartay ilaa ay ka dishay intaasna uga maharine ee inta qoorta goosay
bay qalcadda korkeeda fuushay oo madaxiisa yahuudda ku soo dhex turtay markaasay yiraahdeen awalba waan ogeen inuu Muhammad rag la'aan ka tagayn haweenka allaha karaale noqdo Safiya waxay tarbiyaysay wiilkeedii tarbiyatan u wanaagsan waxa musiibo ka soo gaartay walaalkeed Sawaa sabartay waxayna u shaqaysay diintan oo ku weyneed hirgelintiisana u howlgashay waana sida laga dhowrayo haweenka muslimadaha ah walaalooyin haweenka tusaalaha wanaagsan way badan yihiin waxaana ku soo koobaynaa haweenka tusaalaha wanaagsan tusaalooyinkan imaam Ahmad bin Hanbal hooyadii wuxuu aabihi imaam ku dhintay isagoo ilmo yar ah markaasay hooyadii ahlu salaadka iyo soonka iyo zuhdiga ahayd kafaala qaaday oo tarbiyadiisu u guntatay waana sidaas kaalinta haweenta mu'minada ah mid soo saarto xubno suuban waxay ku barbaarisay wiilkeedii jaceelka alle iyo rasuulkiisa iyo jaceelka kitaabka alle wuxuu yiri imaam Ahmad waxay xafidisay quraanka oo aan dhameeyay anigoo 10 jir ah qofkii quraanka xafidana xafidid faham iyo ku amal falle wuxuu keensaday nabinimada labadiisa gooyood waxay ikicin jirtay wax badan ka hor salaada fajr oo ay kululeen jirtay biyo waayo cimilada Baghdad waxay ahayd mid qabow oo ay labisi jirtay dharkan u fiican markaasaan aniga iyo iyada wixii alla noo qoray wada tukan jirnay markaasaan dabeeto aadi jirnay masjidka iyadoo aad u xijaaban waayo jidku wuxuu ahaa mid fog oo mugdi ah markaasay ku wada tukan jireen masjidka isagoo 10 jir ah waxay kadib maalinta gelinkeeda hore bari jirtay cilmiga oo si fiican u tarbiyeyn jirtay si uu uga noqdo xubin suuban mujtamaca muslimka anfaca maalinta ay la kulanta alle jalla wa ala wuxuu yiri markii aan gaaray 16 jir waxay tiri wiilkaygiyo u dhoof barashada xadiiska nabiga waayo barashada iyo doonista xadiiska nabiga waa hijra xaq Allah waxay u diyaarisay xoogaa saad iyo sahay safara dabeeto tiri amaana Allah ku gashaday amaanadiisa uu ka tagay oo u kacay Makka iyo Madiina iyo Sanaa oo soo noqday isagoo imaam Ahmad ah wuxuuna uga tagay ummadda wixii uu ka tagay cilmi ah hooyadiina waxay leedahay hadii alla idmo xasanaad u dhigma inta uu leeyahay imaam Ahmad iyo intii ku amal fasha amalka Ahmad khayrka ummadani ku jirana waa badan yahay marka hadii ay ahaan lahaayeen haweenka sida aan soo sheegnay wax badan baa laga fadili lahaa in badan oo kamid ragga waa sidaas miyay ku cajabiyeen tilmaamaha haweenka walaashay muslimada ahayd hadii ay ku cajabiyeen tilmaanta wanaagsan ee qof leeyahay waa lagaga daydaaya isku day inaad ku dayato oo aad ka qaadato wanaaga walaashay mu'minada ahayd cadawgaagu waa badan yihiin kuwa doonayana inay ku adeegsadaan duminta diintan iyo xishoodka iyo dhowrsanida way badan yihiin waxayna noqon karaan kuwa magaca iyo muuqaalka nala wadaaga wuxuu midkood yiri marnaba xaalku ma hagaagayo jeer ay haweenta muslimada ahi ka qaada xijaabka wajigeeda oo quraanka laga saaro wajigoo laga cameeyo mid kalena wuxuu yiri koob khamri ah iyo haysta waxay u burburiyaan ummadda nabi Muhammad si ayaan u burburin karin madaafiicda iyo gantaalada ee ku hafiya hawooyin xunxun iyo maamaanada xayaatada ee go'aankeebaad ka qaadan adoontii Allah kuwaasi go'aanka la fili inaad ka qaadataan waa inaad qabsataan diinta Allah oo ku joogsataan xuduudda Allah laakiin waxaan aragnaa inaynaan arkin baan jeclaan lahayn waxaan aragnaa marmar mid dhar xiran oo haddana qaawan waxaan aragnaa marmar haween dhar ciriiri ku xiran ama dharkii ragga lagu yaqiin xiran ama dhar khafiif xiran ama dhar gaaban ma waxa hadaba wax fudud aan dib lahayn kula noqday walaalay xirashada dharka gaalada walaalay ma waxa ku raali gelin inaad ka mid noqoto ahlu naarka ma waxa ku raali gelin inaad ka baxdo dhaqanka islaamka iyo aadaabtiisa iyo anshaxa iyo asluubta fiican inaad ka baxdo aadaabta quraanka iyo sunnada oo aad qaadato dhaqanka yahuudda iyo kirishtaha ma ku raali gelin in gabdhahaaga iyo mirihii qalbigaaga naarta lagu taxantaqayo ma ku raali gelin inaad gabdhahaaga u xirto dhar ay isaga dhigto xishoodkuna iimaanka buu ka mid yahay ma waxaad raali ka tahay in gabdhahaaga loo soo bandhigo sida badeecada loo soo bandhigo iyagoo wax fidneenaya si uu isaga laalaadiyo mid kastoo akhlaaq xun iyo dhilay walba ee ardaasha ka mid ah ma ku raali gelin inaad xirato ama lagu xiro dharka ahlu naarka may gabadha islaamku marnaba kama raali ahaan doontid hana ka raali noqon sidaas baa la rajeen
hoyaadkaadu iyo gabaadkaaduna waa diintaada weyn ee dhowraysa sharaftaada xishoodkaaga dhowrsanidaada waxay ku amartaa diinta xijaab iyo xishood markii aad ka tagtaa waxaad u bandhigan tahay cadaabta alla aakhirada adduunkana waxaad u bandhignaan dhurwaayada doonaya inay dhaawacaan oo meel kaga dhacaan sharaftaada oo ugbaadkaaga iyo dhowrsanidaada dhooqeeyaan waxay doonayaan inay ku dhameeyaan si aad noloshaada hami iyo hiyowaal ugu jirto haweenka qaarkoodna allaha hanuuniye waxay dhageystaan hadalka ragga ardaasha ee foolxumada iyo waxa xil kale ugu yeeraya oo aadaan oo waa sida ariga uu horaya kan gowracaya isagoo geen kawaanka gabadha islaamkoy gacmo xun oo baas ee dhagar badan baa lagugu soo fidiyay habab qoraallo soo jiidasho leh iyo wargeyso xun aflaan baas hadalle iyo weerooyin dhalanteeda iyagoo doonaya inay kuu soo saaraan hooggaaga iyo hahaabkaaga imisaad tiraahda duf ha ku baxeene iimaanku waa qalbiga ee ma aha jirka oo la qariyo وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أو وحضرا كلمة كسو بحث أففكوضة كما هضلان وحان أهين بين waxay doonayaan inaad soo qaado tilaabada koowaad oo ah tan ugu adag masaafada kunka meelna waxay ku bilaabataa hal tilaabo waxay doonayaan inaad noqoto faajirad fasha waxille iyo fawaaxish iyo falxumooyin faasiqada waxay doonayaan inaad noqoto qaxbad qaab daran oo qeyrka ka fog xaashaa lillaah inaad sidaas noqoto waxay doonayaan oo sugi laayihiinna inaad tuurto shukadaada oo iska xorta xijaabka iyo xishoodka iyo xaq jaceelka iyo iimaanka oo dabadeedna ka tagta salaada maalintaas bayna indha qabowsanayaan oo kuugu cayaarayaan sida ilmaha yar ugu cayaaraan kubadda oo kuugu dheelayaan sida ay aydu ugu dheesha baktiga ilaahay ha ku xafidee ku cara iyo ciil geli inaadan dhagaysan oo aadan milicsanba waxaa baas ay kuugu yeeraan ugu dilciil iyo murugo inaad laasimtid xishoodkaaga iyo xijaabkaaga wax kale ma dhiirigelin riwaayada inay arkeen mooyaane inay ku guulaysteen inaad dhagaysato xiisahooda xun ood fiirsato aflaantooda baas oo aad gasho riwaayadahooda xun iyo inay arkeen haween suuqyada iyo dukaamada warwareega dan la-aan oo ragga gada iskala hadhadli miyaadan rumaysnayn walaalay allah iyo maalinta aakhiro oo ma waadan ka rajo qabin allah iyo daarta aakhiro haddii aad rumaysan tahay ogow ina alla xaaraameeyey xijaab la-aanta sida uu u xaaraanshay fisqiga iyo fujuurka wuxuuna amray mu'minadaha inay laabtaan indhaha oo xafidaan farjigooda ibta laga dhaco wuxuuna ka reebay inay muujiyaan wax ka mida quruxdooda balse wuxuu amray inay joogaan guryahooda oo ayan ka bixin inay dan kalifta mooyaane haddiina ay u baxaan dhan inay baxaan iyagoo asturan tin ilaa cirab iyagoo aan isu soo qurxin oo aan isu soo odgin oo aan isu soo uumin yacni uunsi soo taaban waana inuu u idmaa bixidooda weligooda yacni mas-uulkooda haweentii kastoo ku soo baxdana waxaan sidaas ahayn cara alle ayay isu soo jiiday ilaa ay ka laabato haweentii kastoo isa soo udgisa isa soo bukhuurisa isa soo uunsisa oo soo taabato uunsi oo soo marta rag ay soo gaarto udugeeda uunsigeeda waa zaaniyad qaxbad naagtaasi ee walaalooyin u socda aayar si xushood iyo xushmad leh oo walaalayna ha gashanin kabo cirbadhaadheer iyo kabo dhulka lagu garaaco oo sawdkooda la maqlo waayo waa intaasoo qulubta kuwa qalbiga ka jiran saamayso alla wuxuu yidhi kor ahaaye ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن oo yaysan ku garaacin dhulka cagahooda si ay u soo bandhigaan waxa ay qariyaan oo quruxdooda ah haweenna yaysan la keliyoobin ningaya iyadoo uusan maxramkeeda la joogin maxramna waxaa la yidhaahdaa nin guursigeeda abad u xaaraan ka yahay naagtana ninkeedu waa u maxram wuxuu yidhi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam nina naagoo geeya islama keliyoobaan ilaa shaydaan baa saddex ku soo noqda oo soo saddexeeya meesha uu shaydaan soo galana ma khayr baa laga sugay sidoo kale walaalay ha gacan qaadin ragga gayaankaaga ah waxay damacda haweenay inay rasuulka gacan qaado iyadoo doonaysa inay wacad kula gasho inay adeecdo alle iyo rasuulkiisa af adin iyo uurba saa wuxuu ku yidhi haweenka ma gacan qaado waa haweenka gayaankiisa ah wacadkiina afka unbuu kaga qaaday alla ka cabsada walaalooyin naarta lama xamili karee waa loo sabri karaa gaajo dhibaato
iyo mashaqooyin laakiin lama xamili kara naarta allah naga koriyo naarta walaalooyin haraacina talaabooyinka shaytaan waayo wuxuu amraa xumaan iyo dhilaysi walaa shay rumaysanay allah walaa shay u sujuuday allah walaa shay asturtay jirkeeda iska jir hoobadka waayo kufkufka iyo dhacdhaca waxay kugu ridi naarta oo rug baasa iska jirna oo iska jir gabadhii Caaisha iyo Xafsa iyo Zaynab iyo Asmaa inaad ku daganta xadaarada reer galbeedka ee dhalanteedka ah waayo waa dab ay iyaguba ku gubteen ee dhageyso kuna waana qaado oo aqoonso sharka si aadan ugu dhicin oo uga digtoonaato qofkii aan sharka iyo khayrka kala garanayna waa ku dhici karaa sharka waxaa ku soo baxay wargeys ka soo baxa dalka Mareykanka daraasad kuurgalid oo laga sameeyay jaamacad kamid ah jaamacadaha Mareykanka hal sano gudaheeda waxay xaqiijiyeen in 20,000 oo gabdhood lagu ureeyay zino iyo dhilaysi sanad gudihii alla baynu ka magan galnay foolxumooyinka waxooda muuqda iyo waxooda qarsoon iyo in Mareykanka ay qaabilaan 1 milyan oo wacala ah oo awlaad zina ah sanad kasta ayna ka sheeganayso dawladda mushkilada daryeelka ilmaha tirakoob laga sii daayay telefishinka Faransiiska waxay gaareen tirada haweenka iskaabulada kaligood degan 8 milyan oo haween oo hooyo kali nool ah aan wax maciina haysan walaa iyo walal ku nool kufsigana wuxuu gaaray 22,000 oo xaalad sanad kasta qoraan Mareykan wuxuu yiri tirakoobka sanadkii 1979 qadkii casaw soo dhaafay oo qatar culus buu sheegaya tirada gabdhaha 15 jirka iyo 16 jirka gabdhaha aan wali 20 ka gaarin ee ku dhala guur la'aanta waxay gaareen 600 oo kun oo gabdhood 10,000 oo kuwa kamid ah way ka yaraayeen 14 jir sida ay tahayna waxay yiraahdaan wakaburat kalimatan takhruju min afwahihim waxay yiraahdaan xijaabka iyo nimanka iyo naagaha aan isdhexgelin waxay keenayaan uqdad galmood jacayl ah laakiin taa waaqicaba beeninaya ka warama 22,000 oo xaaladooda kufsasho ah sanad kasta xaaladka kufsashada sida aad dhageysateen tira ma leh wadamada gaalada gudahooda ninka oo gabadhiisa hooyadiis iyo walaashiis fuulana waa caadi wadamada gaalada gudahooda allah naga koriyo fisqa iyo faajirnimada ingiriiskana waxaa jira 20,000 oo xaalo oo ilmiska soo ridida sanad kasta intaas waxaa dheer cudurrada faafay sida aydiska jabtada waraabowga isnidaamiska iyo wax la mid ah runbuna sheegay rasuulkii Allah sallallahu alayhi wa sallam oo jiray 1400 oo sano ka hor degaankii faaxishada yaani dhilaysiga ay soo banbaxda oo cadeysta wuxuu Allah ku salladaa cudurro iyo jirooyin aan hore loo arag waa sidaasna cid ogaan ka daana ma jidda ciidamada rabbiga isaga ma ahee gabadha islaamkay waxay la doonayaan gaaladu inay muslimiinta sidooda oo kale noqdaan marnaba yahuudi iyo kirishtaha ka marraale noqon doonaan jeer adraacda diintooda ee isjir oo digtoonow walaa shay islaamka waxaad hor joogtaa laba daaci oo wax kugu yeeri mid kugu yeeri naar iyo ceeb iyo fadeexad ee ka carar sidii aad uga carari lahayd libaax iyo mid kugu yeeri janno waana rasuulkii Allah sallallahu alayhi wa sallam hanuunna waxa u toosan hanuunkiisa ee raacay ku dhaganow waadna la kulmi doontaa wax kugu jeesjeesa oo doonaya inaad noqoto saaqidad sida gaalada u dhaqanta waxaad la kulmi doontaa qaar ka yiraahdo xijaabkaaga waa khaymad yaani teendo waana la yiri wakaburat kalimatan takhruju min afwahihim waxaad la kulmi doontaa kuwa ka yiraahdo xijaabka iska dhig ama khafiifi waxay kugu yeerayaan naar haddii aad yeeshana hoogtay oo bacday ee jawaabtaadu ha ahaato dufka baxa oo alla idin dullee ee idaaya dariiqaygana iga leexda aan ku dul joogsana tusaale kale halakan waa joogsi weyn joogsi fiirsi iyo ka fakar leh aan dul joogsano tusaalahan waa tusaale wanaagsan oo fariida waxaynu la joogsanaynaa asmaa radiyallahu anha wa ardaaha laba dhaclay run sheegto oo run sheeg dhalay ee alle ku manaystay arrin uusan haweenay kale ku manaysan horteed iyo gadaasheedba bal xitaa uu ragga ku manaysan waa uu adeega nabiga sallallahu alayhi wa sallam iyo aabaheed iyagoo ku jira godkii iyagoo muhaajiriin u ah xagga Madiina dhacdo fursad kaliya ahayd
iyo adeegid fursad kaliya ahayd waxaa guursaday az-Zubayr radiyallahu anhu wa ardaah oo kamida 10kii loogu bishaareeyay jannada waxay asmaa tiri wuxuu guursaday Zubayr isagoo aan wax xoolo ah haysan iyo maal faraskiisa ma ahe markaas waxaan coos u dhigi jiray faraskiisa waxaa intaas ii dheeraa oo aan qaban jiray hawsha guriga oo dhan oo dhageysta walaalooyin kuma ahayn asmaa dhibaato iyo culays ninkeeda intaas waxyaalo adduun ka dalabta iyo rabitaanadeeda gaarka ah oo kaliya waayo uma dalbin adduun raaxo oo kaliya darteed mana doonin inuu ninkeeda iyadu u shaqeeyo oo ay kaligeed yeelato oo danaheeda iyo waxa ay rabto u oofiya oo raaxadeeda kaliya ka shaqeeya balse iyada u adeegi jirtay ninkeeda waa farxad iyo raali gelin jirtay gadaashi ayayna istaagi jirtay saf ahaan oo alle ajar kaga dooni jirtay sida iyadoo guriga gudihiisa bay xilkeeda ka haysay iyadoo ka shaqeynaysay dhowrta ilaalisa oo si fiican u barbaarisa caruurteeda isaguna guriga dabadiisa buu xilkiisa ka hayay waana sidaas qaybta caadilka ah waana sidaas inay ahaadaan qoysaska muslimka ah xaggee ka joogta haweenta muslimadda ah maanta ninkeeda xagga faafintiisa diinta ma dejisa ma farxad gelisa ma geesinimo gelisa ma xasilisa ma xanaanaysa ma xoojisa ma la halgan iyo howlgasha oo ma isaga daysa danaheeda qaar alla darti mise waa lugooyo iyo jiir ku gudban oo ciriiri ka gelisa faafinta diinta anigu waxaan ugu yeerayaa walaalooyinka inay ku dhiirigeliyaan nimankooda iyo ilmahooda iyo walaalahood iyo walaalooyinkood islaaxinta iyo ka talinta samaha ummadda islaamka iyo barashada diinta iyo ku camal falka iyo fidintiisa waxaana ugu jira tusaale asmaa oo maxay tusaale wanaagsan ahayd waxaynu ku jirnaa qisadii asmaa waxaa guursaday baynu niri Zubayr wuxuuna alla siiyay Abdullaahi ibn Zubayr markaasay ku barbaarisay diintan quraanka sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo xusidda alla habeen iyo maalinba sir iyo saaqba sida buu ku barbaaray isagoo ayan waalidkii marnaba ka caajisin baradiisa cilmiga iyo ku tarbiyeentiisa diinta islaamka iyo adeeg si uu wax uga diriro oo uga dagaal galo koryeelida diinta alle islaamka heer maalin maalmaha kamid oo uu soo galay majliskii nabiga sallallahu alayhi wasallam isagoo ilmo ah markaasuu nabigu u yimid oo wacad kula galay faafinta diinta iyo inuu naf iyo maalba u huro markaasuu nabiga dhasheena sidaas baynu rajaynaynaa haweenta dharkeeda kabaheeda raaxadeeda cuntadeeda cabideeda iyo wareegaalaysi iyo wax loo qabtay iyada iyo reerkeeda iyo wax la mid oo kaliya ka fakarta ma soo saarta fac wanaagsan oo suuban oo waxay soo saartaa jirri iyo mooriyaan iyo mashaqaystayaal iyo maangaabyo iyo makas maxasa oo ummadda culays ku noqda raglamood aan ragsa ahayn fiiriya walaalooyin asmaa sida ay u dhaqmaysay xitaa markay duruufta adkeyd iyadoo 97 jirta markii wiilkeedii Abdullaahi ibn Zubayr lagu hareereeyay xaramka waagii daalimkii Xajjaaj bin Yuusuf markaasuu u yimid Abdullaahi ibn Zubayr isagoo la tashanaya hooyadii muxuu sameeyaa waxay ku tiri si kalsooni iyo sugnaan leh adiga naftaada ogsoon haddii aad og tahay inaad xaq ku taagan tahay oo xaq aad dadka ugu yeerayso ku samir oo sugnow ilaa aad ku dhimato xaqa haddiise aad doonaysid adduun maxaad markaas addoon baas tahay waxaad halaagtay naftaada iyo kuwa kula jira wuxuu yidhi hooyo wallaahi baan adduun rabin dulmi iyo khiyaanana aqoon alla baana ogsoon sirtayda iyo saaqayga
waxay tiri alxamdulilah waxaan alla ka rajayn inuu ii fududeeyo murugada qalbiga haddii aad hortay baxdo oo lagu oofsado oo iiga hormarta alle waa isku soo boodeen iyagoo isa sagootinaya oo tiri wiilkaygiyow aad iigu soo dhawaaw si aan u ursado caraftaada oo kuu sagootiyo waxaa dhici karta inaan dib dambe isu arag markaasuu ku soo booday isagoo gacmaheeda iyo wejigeeda dhunkanaya oo ilmadii wada qoysay labadoodaba iyadoo taataabanaysa waa haweeney indhala oo aan waxba arkin dabeeta waxay tiri cabdullaahi hooyo waa maxay waxaan aad xiran tahay wuxuu yidhi waa dirac aan xiranahay waxay tiri maandhow ma aha kanin dharka qof rabaa inuu adar alle u shahiito iska bixi oo gasho saraawiil adagoo waasic ah si ay xarakada kuugu fududaato oo haddii lagu dilo ayan cawradaada u faydmin wuxuu iska bixiyey diricii oo dhoojistay saraawiishii oo dhaqaaqay isagoo leh hooyoy ha ka daalin inaad ii soo ducayso markaasay saacabadeedii kor u taagtay oo tiri allow ugu naxariiso oo istaagiisa dheer habeenada salaatuleylka iyo oohintiisa dar alle dadkoo hurda allow ugu naxariiso gaajadiisa iyo haraadkiisa dartaa isagoo soomaa ah meeshii uu joogaba allow waxaan ammaano gashtay adiga oo ku raalli ahay wixii aad u qortay ee iga sii samariya iimaan markaasuu tegay oo habeenkaasi oo idil salaad ku soo jeeday oo dadkii tujiyey salaadii fajrka kadib wuxuu ammaanay alle oo mahdiyey oo ku booriyey asxaabtiisii dagaalka oo dagaal galay waxaa ku yimid nabar wejigiisii oo la gariiray dhiigna ka wada dhigtay wejigiisii markaasuu dhacay oo nafta ka baxday oo maka loo wada ooday allah u naxariistee intaas uguma ayan harine colkiisii oo inta daldaleen bay meel dheer sureen siduuba iimaankiisu ugu sarreeyey intuu noolaa markaasay dadkii hoostiisii yoobsadeen isagoo kor ah sare saa waxaa soo gaaray hooyadii samirka badneedee 79 jirka ahayd qabarka dilkiisa oo u tagtay wiilkeedii la daldalay oo u dhowaatay meeshii la suray iyadoo aan arkayn oo u ducaysay markaasaa waxaa u yimid kii dilay oo ku yidhi hooyo madaxweynaha wuxuu yidhi dhaqaaleeya asmaa oo ha loo roonaado saa waa ku qaylisay oo tiri iga tag anigu hooyo kuuma ahiye ee waxaan hooyadiis ahay midkan la daldalay alla hortii bayna ku kala bixi doonaan colku saa ibnu cumar baa yimid oo cabdullaahi oo daldalan hor istaagay oo yidhi assalaamu calayka qubayb aabbihiisow nabad dushaada ha ahaato qubayb aabbihiisow wallaahi baan kugu ogeen waxaan ahayn inaad ahayd soomaa salaad badan oo xiriiriya qaraabadiisa waxay dadka kaa yidhaahdeen waxaad tahay ninka u shar badan ummaddan wallaahi ummad aad adigu sharkee tahay waa ummad khayr dhammaanteed markaasuu aaday ibnu cumar asmaa oo u tacsiyeeyey oo dabeeta ku yidhi alla ka cabso oo sabiroo sugnow waxay tiri ibnu cumarow oo maxaa ii diiday inaan sabro iyadoo inta qoorta la gooyey nebi yaxye ibni zakariya madaxiisii loo hadiyeeyey dhilla ka mida dhillooyinkii reer bani israa'iil nebi yaxye bin zakariya oo nebi ciise ay ilmahabreed ahaayeen oo uu nebi dhalay ahaa waxaa zamankiisa batay faaxishada dhillaysiga saa waa uu ka digay intaana ka digaya cirib xumadeeda oo kaga digaya arrintaasi fagaaro walba falxumada zinada uga hadlay saa habeenada ka mida iyadoo madaxweynihii xukunka u haya markaa ay naaga xun u cayaarayeen buu mid u bogay cayaarteedii iyo heesaheedii iyo isruuxeedii saa wuxuu ku yidhi waxaad rabta sheego saa waxay tiri madaxa yaxya bin zakariya baan rabaa markaasuu amray in la keeno oo la dilo oo sidii yeeleen yuhuuddu madaxiisiina markaas loo hadiyey qaxbad ka mida qaxbooyinkii bani israa'iil ee sidee baan u sabreen iyadoo nebiyadii alle sidaa loo gelayay ka warrama hooyada isma waalin ma barooran ma jeexjeexin dhar iskama garaacin dhabanka ee waxay isu dhiibtay alle oo arrinka leh awal iyo aakhirba وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم
mar waxaa dabadda ka yimid wiilkeedii Mundir ibn Zubayr saa wuxuu u soo diray cambuur uu ka keenay dibadda iyadoo aan waxba arkayn saa waa taabsatay maradii oo tiri uffay u celiya maradiisa saa waa ku cuslaatay wiilkeedii arrintaa oo ku yiri hooyo jirkaaga lagama arki karo waxay tiri haddii uusan jirka muujinayn xubnihiisa buu sifayn markaasuu u soo iibiyey mara kale oo shuruudihii xijaabka ku dhan tahay markaasay tiri kanoo kale igu aragtir allah u naxariista Asmaa haddii ay arki lahayd waxa ay falayaan haweenka muslimiinta ah qaarkood maanta iyo waxa ay xirtaan gabdhihii Asmaa iyo Khadiija iyo Sumayya iyo Safiya maxay oran lahayd waxaan runtii la yaabaa dheg maqasho qowlkii nabiga sallallahu alayhi wasallam sinfani min ahli an-nar lam arahuma wa dhakara minhum نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات إلى أن قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسافة كذا وكذا لا بقول أهل النار كمذا يجري النبي صلى الله عليه وسلم ما أن أرك أنه وحنا كمذا وجرها وين أرحنا مسنق أون حقي كلا حديدت كان كلا حية إلى أجري مجلي دونان جنة من حيل دونان أدر كذا نوحو أجره مسافة انتا وقودين دران إيا دليعين عرس محاك حن جنة أو لوايا إيا أدو كذا عرفت بدن جنة هدي لوايانا محاجر عن أحين نار أو رقباسة كرو قاد مدحادا ولا شيء مسلمة أهي أو سدق له وإيك هويوينكا إي ولالوينكا أن صوحصني هرانكي صوبنا أمدن كمدا أو اللوي ديس إنو كهلين سيو oo falo camaladooda oo kale oo ku dayasoo banooyinka si uu alla meel kaliya idin wada geeyo qofkana dadku uu jecel yahay baa la meel geeya haddii aad jeceshahay fanaaniinta iyo fanaanaadka ciyaartooyda iyo jilayaasha iyo jilooyinka xun iyaga ayaad la meel noqon haddiina aad jeceshahay alle rasuushiisa saalixiinta shuhadada suubanayaasha صوبانوينك سيدة فاطمة خديجة مريم عاصية عائشة أسماء صفية سمية جويرية ميمونة يوحلمدة إيجا أيات لما يلنقن أدونتي الله أوغو الله أو لا إمو وحي لو صاري أو واجبية أو ويردت كدين تعالي أو هديئات سكارك قلبي عليك حصوص جيريدة أدونتي الله حصوص مركا يكو إيمان دونان منكر ينكير sidee xaalkaagu ahaan markii uu dhawaaqay Israafiil oo suurka la afuufo oo lagula keena banka qiyaamo umanka oo idil adigoo cagacad oo qaawan oo buriye qaba oo qorraxda u jirto madaxaada qadar mayl oo ku yiraahdo alla aabaheen aadanoo ka soo saar qaybtii naarta loo darbay ee ku jira ubadkaaga wuxuu oran doonaa ka imasa wuxuu Allah oran doonaa kunkiiba 999 markaas ay caruurta ciroola noqon oo hilmaami nuujisadii waxay nuujinaysay oo mid walba oo uurey ah uurkeeda dhigi doonta oo dadka aad arki doonta iyagoo ah sida wax sarqaansan mana sarqaansana ee cadaabta allaba ahaan doonta mid daran oo magacaaga lagugu yeero dadka dhexdooda muxuu xaalkaaga ahaan adoontii Allah laa ilaaha illa Allah ee toobadkeen walaalay intay goor tahay oo dambi dhaaf alla weydiiso oo badsa camalada wanaagsan wallahi baysan jirin noloshan kadib waxaan janno iyo naar ahayn jannada iyo naartana mid walba ka dhow yeelinka ama suunka kabaha aad gashan tahay ee ka cabso alla gabadha islaamkooy alla ka cabso midda aan xijaabka qaadanay alla ka cabso midda safartay mahram la'aanta alla ka cabso midda dharka isaga dhigtay waxaan ahayn gurigeeda alla ka cabso midda ragga geeya la qosasho oo la sheekaysatay alla ka cabso midda ragga dhex gasha oo guri ama gaari kula qalwoota yaani kaliyooda ningaya alla ka cabso midda aan tukanay salaad la'aani waa kufri iyo gaalnimo ah alla ka cabso midda aan zakada la bixinay zakadu waa salaada walaasheeda alla ka cabso midda aan diinta xaq ah u shaqayninay alla ka cabso midda aan diinta baranay kuna amal falin alla ka cabso midda u korisay caruurteeda sida xoolihii oo kale oo cunto iyo cabid kaliya siisa aan alla xusuusin cajalada iyo kutub diinta ka hadlaya aan u keenin dugsiyada diinta laga bartana aan geen
alla ka cabsa midda heesaha dhegaysatay alla ka cabsa midda riwaayadaha iyo aflaamta gashoy alla ka cabsa midda xanta iyo dirdirada taqaanay alla ka cabso midda aan xuquuqda waalidkeed dhowrinay alla ka cabsa midda aan qaraabadeeda xiriirinay alla ka cabsa midda aan waalidkeed wanaajinay alla ka cabsa midda aan dariska xuquuqdooda dhowrinay oo alla ka cabsa walaalay oo faqri iyo gaajo ayaysan kugu xambaarin ku caasinta alle ku noolaanshaha iyo dhexdegidda gaalo quruley dhexdooda adigoo ku waafaqaya hanaankooda nolosha iyo kufriga iyo gaalnimadooda gabadha islaamka waa inay guriga waalidkeed joogtaa oo ku sabirtaa dhibka iyo qaxarka nolosha oo xitaa ay iskala weynaataa inay qaraabo la seexato oo guryahooda dharka isaga dhigto alla ka cabso midda iyadoo isu soo udgisi u soo baxday dibadda oo ogaada in cadaabta alle daran tahay iyo inaan dunida lagu nagaanin iyo inay wax weyn tahay fadeexada maalinta qiyaamo oo minka oo dhan hortood ee alla ka cabso oo alla ka cabso alla ka cabso wattaquu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun الله نقوليو الله نصوبيو الله نعزيو الله توفيق النوافجيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهو لكن عبد العزيز حسن يعقوب وإذين رجين إنك إيا إذين كما خير إيا دنبداف إيا نرل صوبا إيا عمر الدير إيا عبادة إيا إنو إلهي سبحانه وتعالى تحت مستقر رحمته لكلي جنديسة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وهيئة إسلام كأي قرقار كصوماليا waxaa laga dalban karaa manshuuraadka hay-adda islaamka ee gargaarka Soomaaliya PO Box 33 eber 49 Riyadh 11448 telefoon iyo fax number 459 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من
أبنائكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة